بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ومعهد العتيق لتعليم اللغة العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرضي سود هذا حقاق ما أنت وحن قادنا درس جيني سدحاد وهذان وأمثلتها موضوع يسوي هي هذان وأمثلتها معناه إذا هذان وحيتهاي عدة اللغة tilmaam dhow miya ma tilmaam fogba yaa lagu tilmaamayo iska leh inta waxaan kaga soo hadlanay darsigii koobaad dib ugu laabo qofkii aan soo dhageysan hagaaga 10kan hore ka galaya haadaani ximaaraani kuwaani waa laba dameer haadaani ximaaraani kuwaani waa laba dameer waa dameerkii haadaani xadaadaani kuwaani waa laba tumaal haadaani xadaadaani kuwaani waa laba tumaal waxa la yiraahdaa afka Soomaaliga waa ninka af Ingiriiska lagu yiraahdo markaas oo kale injineerka af Carabiga ama muhandiska lagu yiraahdo annagu marka Soomaali ahaan maadaama dad jaahiliye ay haysato aan nahay oo jaahiliye badan ay ku jirto jaahiliye waxaan kala jeedaa qof muslima xirfadiisa iyo shaykiisa iyo kartidiisa in lagu caayo waa nooc min al-jaahiliya oo dhaqankii jaahiliyada iyo gaalada mushrikiinta dhaqankoodii weey tumaal marka waxa la yiraahdaa waa nimanka sameeya mindiyaha kirliyaha hawlo badan qabta fadhiya suuqyada ayaa waxa la yiraahdaa tumaal kirliyada sameeyaan termuusyada sameeyaan hawlo badan bay qabtaan tumaal ninkaas baa la yiraahdaa gaaladu marka magac qurxoon bay u baxsadeen waxay yiraahdeen engineer carabtuna magac qurxoon bay loo baxeen waxay yiraahdeen muhandis laakiin Soomaalidu maan gaabnimadoodii ereyga tumaal waa erey saxan waa qurxoon yahay laakiin ayaga fool xumeeyo waxay kaga dhigeen dadkii wax fool xun tumaalnimadu inay xun tahay oo yaani sinji halaysan uu yahay wax ka jirana malata jaahilnimadaada un baa ku keenaysa iyo jahligaaga iyo dhaqan mushrikiin oo kugu jira waa qofkii aaminsan tumaal baa xun iyo tumaalnimo xun ma halka aad Facebook iyo madalaha la isticmaalo lagu wada hadla aad ku qoronayso engineer af qalaad aad ku faanayso waxa kaaga qurux badan afkaaga Soomaaliga adoo ku faano yiraahdo tumaal maxaa muhandis iyo engineer ku geenay adoo tumaal heli kara xogaa inta baraarujin bay ahayd waan ka baxay haadaani xamaalaani kuwaani waa laba xamaali haadaani xamaalaani kuwaani waa laba xamaali waa nimanka xamaala ama baabuurta alaabta ka dejiya ama alaabta tunkooda ku soo qaada noocaas baa leeyahay xamaali ama markaas gaari gacan baa duruba watee haadaani xasuubaani kuwaani waa laba laptop haadaani xasuubaani kuwaani waa laba laptop haadaani xinaani kuwaani waa laba cilaan haadaani xinaani kuwaani waa laba cilaan ama laba xinno dad baa u yaqaan ereyga Carabi weey oo Soomaali laga dhigay xinne dadku u yaqaan cilaan ama xinno waa dumarka bahalka ay saartaan ama guduud ha ahaado markaas oo cilaan guduudan ha ahaado ama marka ha noqdo madoobayso iyo dhanka dumarka markii la guursanayo ama gabarto ay xaflad ay u socoto ama ay jaamacadii oo kale ka qalin jabiso dugsigii waxa la rabaa laftigeeda gabarto in cilaan saarato laakiin jaamacada wax la ah quraanka Ilaahay iyo ma aqaan waxba lama ahan inay saarataa la marka cilaankaas baa la yiraahdaa gacmaha la saarto sharaxaadaas baa cilaan la yiraahdaa ama xinne ay dadka qaar u yaqaanaan hagaag haadaani xanuutaani kuwaani waa laba dukaan haadaani xanuutaani kuwaani waa laba dukaan waa la yaqaanaa Soomahan ahay dukaanku waa meeshii badeecada iyo alaabtu daalay dadku ay ka soo gadgadanayeen marka ama badeecadu ha ahaato mid tafaariiqa ama ha noqoto mid jumla ah haadaani xaamilaani kuwaani waa laba gariig haadaani xaamilaani kuwaani waa laba gariig waxa la yiraahdaa afka Soomaaliga waa bir yara oo baabuurku markuu taayirka ka halaabo ama shaaga uu ka halaabo ama cagaha baabuurka ay halaabaan ayaa inta loo dhigo ayaa ka bacdi gaariga kor loogu qaadaa si lugta ama cagta ama taayirka ama shaaga gaariga looga bedelo bir taayirta baa la yiraahdaa marka baabuurka dalaacda haga gariig baa la yiraahdaa haadaani xalaaqaani kuwaani waa laba timajare haadaani xalaaqaani kuwaani waa laba timajare ama laba rayiisle ama timajare waa nimanka dadka timaha ka jara haadaani xijaabani kuwaani waa laba xijaab haadaani xijaabani kuwaani waa laba xijaab waa la yaqaan waa xijaabkii dumarka ay xiranayeen markaas hadii rabana wuxuu noqon karaa marka hadii loo baahdo weey laakiin hadda waxa meesha noo yaala waa xijaabkii dumarkan ka hadlayna hadii loo baahdana wuxuu noqdaa waxa loo yaqaan waa taqaanaa Soomahan daaha oo kale hadda tusaale
qol haddii inta la yimaado qolka dhexdiisa daah lagu xiro oo qolkii laba qaybood uu qaybsamo qayb dhankaas ay qayb dhankaana waxa la leeyahay waa xijaab daaha marka meesha lagu xiro xijaab baa la leeyahay waay muxuu ka xijaabay muxuu ka qariyay wuxuu ka qariyay qolka qaybtiisa kale waxa yaala xijaabka macnihiisuna waa sida waa inay haweeneyda dumarka ah ay jirkeeda ay qariso xubnaheeda ay qariso waxay halkaasna aan baraarujiyo ka faa'iideysto kadalika xijaab markaad maqasho xijaabku walaal ma ahan dumarkan la hadlaya xijaabku ma ahan in lagu yiri xaadaada iyo maqaarkaaga kalarka uu ka kooban yahay qari laguma dhihin ee xijaabku waxa weeye xubnahaaga dareemaha kicinaya ama dareenka keenaya in aad asturtood qarisoon la arag kaas marada noocaasa ee xubnahaaga dareenka kicinaya noocay doonaan ha ahaadaan ama cajarkii ha ahaado ama gacantaadii hilibkeedii ha ahaado ama dhabarkaagii ha ahaado meeshay doontaba ha aatee jirkaaga xubnihiisa dareenka kicinaya ayaa waxaa la doonayaa in aad saarto maro aysan ka muuqanin laakiin haddaad maro soo xirato deedna qarinaysa keliya xaadaadii iyo maqaarkaaga inuu madow yahay caddaankiisa kaa xijaab lama yidhaahdo kaahe xijaab lama yidhaahdee waxaad soo gelaysaa sinfigii nebigu uu yidhi sala allahu calayhi wasalam waxaan ku soo arkay laba nooc oo ahlu naarka ka mid ah laba lamida sida loo cadaabay weligii ma arag waxaa ka mid ahaa dumar kaasiyaatun caariyaatun mumiilaatun ru'uusuhunna ka'sinimatu lbukhti ayuu yidhi nebigu sal alay wasalam dumar waxaa ka mid ahaa buu yidhi nebigu kaasiyaatun dhar sita dhar bay wataan ogoya ma qaawana dhar bay sitaan caariyaatun buu yidhi haddana nebigana qaawan uu yidhi haddana maxaa laga wadaa gabartaa maray xiran tahay laakiin waa loo jeedaa naaskeedii futadeedii dhabarkeedii waa loo jeedaa cajaradeedii waa loo jeedaa markay fadhiisato ama ay socoto marka waxa aad xirata maxay tahay xijaab maahan adigu haddaa rabtid isku qanci ka Soomaali ahaan ama ka Carab ahaan ama ka Muslim ahaan anu waxaan wato waa xijaab laakiin xaqiiqada waxaad ogaataa Ilaahay iyo rasuulkiisa waxay xijaab u yaqaanaan ay u dajiyeen nidaam iyo qaanuun unba xijaab noqonaya maalinkaas taa unba xijaaba adigu waxaad rabto isku akhri waxaad heer rabto isku akhri haddaan cabitaan soo qaato deedna aan cabo cabitaanka lagu qoro mango ama cambe lagu qoro laakiin uu khamro yahay oo cabo iraado ruuxan waa cambe iga taga xaqiiqa khamro inay tahay miyay ka tagaysaa maalinka qiyaamaha lagu cadaabayo may kama tagayso marka xijaabku shuruuduu leeyahay shuruudihiisa culimadu way ka hadleen shareecadana ka hadashay haweeneyda ha barato marka waxaad ogaataa xijaab lama yiraahdo maradii xaadaada iyo maqaarkaaga kalarkiisa iyo midabkiisa qarisa lama yiraahdo xijaab ee waxa la yiraahdaa kii xubnahaaga asturo qariya halkaas baan kaas kaga baxay haadaani khufaashani kuwani waa laba kibili ama fiidmeer haadaani khufaashani kuwani waa laba kibili ama fiidmeer iyo kibili waxaan ahayn looma yaqaan shambir weey shambiraha kamida maqribadii buu soo baxaa maqribka markuu gabalku sida u dhaco qorraxdu ay god ka gasho ayuu soo baxaa waxa la yiraahdaa indha male dhawaaqiisu ku socdaa hagaag fiidmeer baa la yiraahdaa ama waxa la yiraahdaa kibili erayadan sidaad aragtaan waa tathniyo waa erayo dhabanaysan yani laba ka kooban si aad marka u hesho ereygan mufradkiisii ama kisigiisii qaacidadeena maxay ahayd alifu tathniya jar ereyga xifdi alifu tathniyaha ayaa jaraysa alifu tathniya marka yaa weeye waa nuunka iyo alifka dhanka midig ka xiga kaliya alifu tathniya la yiraahdaa kaas baad jaraysaa ereygii mufradkiisa ku soo baxay ama kisigiisii baa ku soo baxay hagaag جزاكم الله خير أحسن الله إليكم الدال على الخير كفاعله النبي صلى الله عليه وسلم وحيري dadka khayrka tusiya wuxuu la mid yahay sida qof khayrkii sameeyay waxaan kala jeedaa macadka faafiya linkigiisa faafiya youtube-kiisa faafiya khayrka waxaad kaga qayb qaadan kartaa xataa hadday kugu cuslaato in aad faafiso waxaad ku dadaashaa asaga iskiisa u faafi doonee macadka inaad comment ka baxsato ereyga waxa rabtid soo qor inaad comment ka baxsato labo like-tan inaad ku dadaasho like-taada iyo commentigaaga waxay ka qayb qaadan doontaa in uu macadku meel fog gaaro oo wallahi maahan wax aan anigu khiyaali aan saga ka sheeganayo maahan marka walaal ilaaha ku barakeeyo soo dhawow casharkan haddaad youtube-ka kala socoto casharkaana qoraal ama pdf commentiga ugu horeeya kala deg haddaad telegramkeena ku jirtana muuqaalkan iyo codkan aan duubnay iyo pdf-kiisa iyo warqadiisaba telegramka ayuu yaalaa waa macad العتيق لتعليم اللغة العربية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته